Salaamu calaykum. Beri waxaa jiri jiray wiilkan oo lagu magacaabi jiray Cumar. Cumar waalidiintiisu waxay dhinteen isagoo aad u yar. Waxaa soo korsatay ayeeyadii. Ayeeyadii markii uu waxoogaa weynaaday waa ay dhimatay. Cumar waxa uu ku ahaa nolosha keliya. Waxa uuna dareemayay cidlo. Cumar meelaha ayuu ka soo xamaali jiray si uu markaasi noloshiisa u dabaro. Lacag ayuu urursaday Cumar waxa uuna rabaa inuu markaasi soo gato TV uu daawado waqtiyada uu keligii yahay isla markaana weheshado. Ninkan Cumar ayay daris yihiin. Waxa uuna garaacayaa saciisa isagoo markaasi sacu aad u qayliyayo. Waxaa maqlay qayladii saca Cumar maadaama ay ahaayeen daris. Cumar waxa uu ku yidhi warkada usha waa miskiin aan hadlaynin muxuu kugu sameeyay. Waxa uu u sheegay ninkii Cumar in sacani caana yareeyay isla markaasna 1 litir oo kaliya uu maalinkii oo dhan ka maalo. Waxa uu yidhi Cumar waa runta balse waxaad ogaataa sacan caanihiisa in badan inaad soo isticmaashay gurina aad ka dhisatay isla markaasna caruurtaada aad wax ka baraysay intaasoo sano sacan caanaha aad ka maashid balse hadda uu gaboobay looma baahna inaad markaasi garaacdid usha ka daa waa mujaahide. Ninkii waxa uu ku yidhi war aniga ayaa iska leh adiga maxaa ku haya haddaan doono waan garaaci haddaan doono waan iska dhaafi. Balse Cumar waa uu ka xumaaday hadalkii waxa uuna ku yidhi lacagtii uu markaasi TV-ga soo siisanayay ayaa waxa uu go'aan ku gaaray inuu kaga gato. Waxa uuna ku yidhi ninkii iga gad saca aniga. Saciina sidii ayuu ku soo kaxaystay isagoo markaasi boogihiisii markaasi u boogadhayay isla markaasna sacii daaweeyay cunto fara badanna siiyay. Sacii waxa uu ahaa Cumar maalinka wixii ka dambeeyay mid xanaaneeya isla markaasna meelaha daaqa leh u daaqgeeya. Sacii waa uu bogsaday waa uuna naaxay balse Cumar waxa uu u sheegayaa sacii inuu markaasi TV soo siisan rabay lacagta uu ku soo gatay balse suu isaga u badbaadiyay darteed uu markaasi isaga ugu soo gatay. Maalin maalmaha ka mid ah waxaa soo kacay Cumar waxa uuna u yimid sacii balse waxa uu ku arkay sacii oo markaasi xaaray dheeman fara badan iyo dahab. Waa uu u qaadan waayay isagoo markaasi ururiyay. Lama filaan ayay ku noqotay arrinkan markaasi Cumar waxa uu u soo cararay dhanka iyo suuqa isagoo raba inuu hubiyo waxan inuu dahab yahay balse dahab ayuu noqday waxaana lagaga gatay lacag fara badan. Lacagtii waxa uu ku soo iibsaday TV gabi ahaanba waxa uu bedelay nashqadii gurigiisa oo waxa uu ka dhigay mid qurux badan. Dadka darisku waxa ay ka sheekaysan jireen sida dhibka yar ee uu ku taajiray. Cumar maalin kasta waxa uu u dheli jiray sacaasi 1 dheemana. Ninkii uu saca ka gatay ayaa arrinkii ogaaday isagoo markaasi hunguriyeeyay balse maalin maalmaha ka mid ah ayuu waxa uu arkay Cumar oo markaasi ka hoos qaadaya sacii 1 xabba oo dheemana. Waxa uu go'aansaday inuu ka xado Cumar sacii. Cumar aroortii markii uu soo kacay waxa uu ka waayay xeradii saca oo sacii kumaba jiraba. Waa uu yaabay waxa uuna yidhi sacaygii yaa xaday oo halkuu aaday. Dariskoo dhan ayuu weydiiyay. Adeer maad aragtay ayuu ku yidhi odaygan sacaygii maya adeer anigu ma arag ayuu ugu jawaabay. Sidoo kale eedadana waa uu weydiiyay sacii eedda sacaygii ma aragtay maya eedo anigu sacaygii ma arkin ayay ugu jawaabtay. Meel kasta Cumar waa uu ka eegay oo waa uu waayay sacii balse waxa uu maqlay cod ka soo baxaya ninkii uu hadda ka hor ka gatay saca gurigiisa. Waa uu weydiiyay waxa uuna ku yidhi war ma aragtay sacaygii maya anigu ma arag ayuu ku yidhi sacaga aniga maxaa ii keenaya. Cumar waa uu shakisanaa waxa uuna rabay ninka gudihiisa inuu galo balse waa uu diiday. Ninkii waxa uuna ku yidhi ma geli kartid. Cumar waa uu iska yimiday. Ninkii waa kan sacii isaga oo ku leh dhaqso anigana dahab ii dhal oo taajir iga dhig. Cumar waxa uu u soo kaxaystay ninkii boolis maadaama uu isaga ka shakisanaa. Ninkii albaabka saad u furay waxa uu arkay boolis markaasi isaga dacwo ku ah waxaana lagu yidhi sacii aad xaday ayaanu rabnaa inaad soo celisid. Gudaha ayayna soo galeen booliskii. Cumar arrinkii oo dhan ayuu u sheegay. Ninkiina waxa uu yidhi aniga ayaa hadda ka hor la'aa sacan waxaanan ka iibiyay ninkan balse waxaan ogaaday hadda inuu dhalo dahab. Balse isla markiiba sacii waxa uu dhalay xaarkii ayuu ka dhex baadhay markaasi dahab waa uuna ka waayay. Booliskii iyo dadkiina waa ay ku qosqosleen waxaana lagu yidhi tuug ayaa tahay ee ku wareeji haddadan Cumar isaga ayaa xaq u leh oo markaasi iska leh. Cumar sidii ayuu loogu soo celiyay saciisi sidii ayaana ula midoobay mar labaad una xanaaneyn jiray.